waa maxay asalka carabta kuma aha qofkii ugu horeeyay ku hadla af Carabiga inta aynan bilaabin muuqaalkan haddii ay tahay markii kuugu horreysay soo booqato kanaalkan fadlan nagu soo biirsiina gaarsii asxaabtaada waxaan sidoo kale ka codsanaynaa inaad nagula saliso xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku soo dhawaada muuqaalkan maanta dhamaanteen waxaan ognahay in uu ahaa qofkii ugu horeeyay koonkan yimid inuu ahaa nabi aadam alayhi salaam kadib markii Allah subhanahu wa ta'ala uu ka soo saaray jannadiisa nabi aadam alayhi salaam koonkan waxa kula rafiiqay hooyadii basharka Xaawa wiilashiisana waa ay tarmeen oo dhulka ay camireen isaga dabadiis rabbigana waxa uu soo saaray nabi nuux oo uu ka soo saaray qoomkiisa kadib halaagii dadka ahaa ee lagu halaagay intii beenisay nabi nuux alayhi salaam inta badan dadku waa ay haligmeen nabi nuux waxa uu noqday aabihii labaad ee bini aadamka waxa uu dhalay 3 wiil oo kala ah Ham, Shem iyo Yafis. Shem waa wiilkii labaad ee uu dhalay nabi nuux waxa uu ahaa carab midka ay ku abtirsadaan waxa uu dhalay 5 wiil oo kala ah Arfakhshad, Walaawid, Iram, Ashud iyo Ghulaym. sidoo ah marka hab nololeedka carabtu waxay ahaan jireen in ay galaan safar joogto ah kaas oo uu ahaa hab nololeed waxa ay ku noolaayeen teendooyin geel ay dhaqan jireen farda ay fuuli jireen waxa ay ku noolaayeen ugaarsiga iyo caanamalka waxayna u badnaayeen gobolada ku yaal inta u dhaxaysa badweynta Atlantiga ilaa cirifka Yemen Hindiya waxay deganayeen Yemen Hijaaz Masar Morocco iyo gobolada kale qaybaha carabta taariikhyahanada inta badan waxay isku raaceen in carabtu ay asal ahaan ka soo jeedaan 3 qaybood waxayna kala ahaayeen al-Arab al-Baa'ida wal-Arab al-Musta'riya wal-Arab al-Aariya waa kuma marka Arab al-Baa'ida waa carab ka soo jeeda qoomkii reer Caad iyo Samuud reer Caad waxa ay ku abtirsadaan Iram oo ahaa awlaadii uu dhalay nabi nuux waxa ay deganayeen Ahqaaf oo u dhaxaysa Yemen iyo Cumaan reer Samuud ayagana waxay ku abtirsadaan Iram oo ahaa mid ka mid ah awlaadii nabi nuux waxa ay deganayeen Hijaaz iyo Sham oo hadda loo yaqaan Suuriya al-Arab al-Musta'riya waa carab ay ku abtirsadaan nabi Ismaaciil oo u dhalay sayyidina Ibrahim alayhi salaam waxaana sidoo kale la yiraahdaa oo nisabkooda uu galaa Adnaaniyun kadib markii uu Allah amray nabi Ibrahim alayhi salaam in uu ka tago xaaskiisa Haajir iyo wiilkiisa Ismaaciil oo isaga tago magaalada Makka oo markaasi ahayd meel bannaan oo aan lahayn wax biyo ah iyo baad Allah subhanahu wa ta'ala ayaa waxa uu ku manaystay Haajir iyo nabi Ismaaciil biyaha Zamzamka dad safarley ah oo qabiilkooda la yiraahdo Jurhum ayaa arkay Haajir iyo nabi Ismaaciil oo meel bannaan iska jooga oo iska cabaya biyaha Zamzamka waxa ay Haajir weydiisteen in ay degaan halkan oo ay biyaha cabaan way u ogolaatay halkaas ay degeen oo nabi Ismaaciil alayhi salaam uu ku koray kuna barbaaray nabi Ismaaciil alayhi salaam waxa uu guursaday gabar uu dhalay duqa ugu sareeyay Jurhum waxa ay u dhashay wiilkii la yiraahdo Naabit halkaas ay ku faaftay durriyadii nabi Ismaaciil alayhi salaam ilaa ay ka soo gaartay Macad bin Adnaan oo ah halka ay Quraysh ka soo gashay carabta Xaafid bin Hajar ayaa waxa laga wariyay in carabta qaxdaaniyiintu ay ku abtirsadaan nabi Ismaaciil alayhi salaam waxa ay haysteen diinta islaamka ilaa ay ku faaftay meelo badan oo ka mid ah jasiiradda carabta sanadba sanad buu isku dhiibay afkaartii way isbedeshay jiilba jiilba ka dambeeyay waxaa yimid Amr bin Wahyi oo ahaa duqa ugu sareeyay qabiilka Khuzaaca oo ahaa mid aad ay u cizeeyaan una sharfaarey Khuzaaca waxa uu u safray Sham waxa uu ku soo arkay dad caabudaya asnaam waa uu qancay waxa uu soo qaatay sanad lagu magacaabo Hubal waxa uu dhigay Kacbada sidaas ayay ugu dhex faaftay shirkiga iyo asnaam caabudida carab dhexdeeda Arab al-Aariya waxa lagu yeeray inay yihiin asalka carabta wuxuuna abtirsigooda dib ugu noqonayaa Yaqub bin Qahdaan bin Aabir bin Shaliq bin Arfakhshad bin Sam bin Nuux taariikhyahanada iyo culimada aad bay iskugu khilaafeen qofkii ugu horeeyay ku hadla af Carabiga qaar ka mid ah culimada ayaa sheega inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ku hadla Carabiga inuu ahaa Ibn Yaqrub sidoo kale qaar kale ayaa waxa ay sheegaan inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Carabi ku hadla inuu ahaa nabi Ismaaciil alayhi salaam qaar kale ayaa waxay sheegaan inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku hadla af Carabiga inuu ahaa nabi Aadam alayhi salaam Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa ayuu wuxuu ku yiri waxallama Aadam al-asmaa kullaha Aadam waan barnay magacyada oo idil muuqaalkan halkaas ayaa ku soo koobeen amaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii muuqaalkan aad ka heshay uu ku cajibiyay like saar lana wadaag asxaabtaada